bismillaahir rahmaanir rahiim kusoo dhawaada shabakada Sayax oo aad uga barateen in idin soo baahiso cilmiga teknolojiyada casharkeenan wuxuu ku saabsanaan doonaa WordPress si aan WordPress ugu shubno computerka waxaynu u baahanahay talaabooyinkan soo socda waa inaynu haysanaa WAMP server waanu soo qaatay versionka 2.5 oo example kan tusaalaha casharka aynu ku bixin doono iyo waxaan u baahanahay WordPress waa talaabada koowaad ee laga maarmaanka waa inaad haysataa WAMP server runtii WAMP waxaa loo soo gaabiyey Windows Apache MySQL PHP WAMP-gu waa package lagu soo koobay dhammaan software-radan afarta ah oo ka kooban yahay waa kan hadda waxaynu u baahanahay Apache oo ah 2.4.9 iyo MySQL oo ah 5.6.17 iyo PHP oo ah versionka 5.5.11.12 WAMP-gan ayaa wata dhammaan versionadan sidaas daraadeed kusoo dhawaada casharkan cusub haddii aan u guda galno waxaan halkan ku haystaa folderkan oo igu jira WAMP aan magac ka bedelo talaabada ugu horeysa aynu qaadayno waxaynu ku duubi doonaa WAMP-ga ee la soco waxaan dul tagayaa WAMP-ga kadibna WAMP-gi waa kan application-ki right click baan leeyahay kadibna waxaan doonayaa run as administrator kadibna waxaan dooranayaa yes next accept next la soco wuxuu kuu dhigi doonaa C kadibna WAMP next waxaan leeyahay iga samee icon desktop next install hadda waa uu ku shubayaa waynu sugaynaa intuu dhammaynayo okay hadda wuxuu weydiiyey wuxuu ku leeyahay Firefox browserka Firefox baa ku jira computerkaaga default ma uga dhigaa WAMP server yes baan leeyahay marba browserka ugu jira ayuu ku soo qabanayaa markaas wuxuu ku leeyahay default ka dhigo soo isla markiiba hodho ugu soo kaco adoo buu ku leeyahay Windows waxaan leeyahay cancel ha ogolaan sidaad u jeedaan waxaa halkan inoogu qoran SMTP-ga localhost oo inuu hodho automatic inoogu soo qaban doonto kadibna waxaan leenahay next kadibna waxaan leenahay finish hadda casaan ayay dhinacan tahay waa inuu isku bedelaa cagaar si uu active u noqdo WAMP server-gu sidaad u jeed yes hadda wuxuu noqday active haddii uusan cagaarkaas ahayn micnaheedu waxa weeye kuu shaqayn maayo aan soo dejiyo waxaan imanayaa WAMP-gan dul tagaya dhankan hoose buu imanayaa kadibna waxaan dooranayaa localhost sidaynu u jeedno waxaa inoo soo galay server configuration WAMP-kii dhammaan waxyaabihii ku jiray oo dhan micnaheedu waxa weeye hadda WAMP server-ku waa uu inoo shaqaynayaa wayna ku guuleysanay talaabada ku xigta oo aynu qaadayno waxa weeye maadaama uu WAMP-gii uu inoo shaqeeyey waxaan rabnaa inaynu ku duubno WordPress haddaba la soco casharka xiga oo aynu kaga hadli doono ku duubista WordPress-ka